objectives of external financial reporting haddaba ahdaafta riboorada ee dibadda ee maaliga ah waa maxay haddaba saan usoo sheegnay objectives of external financial reporting waxa weeye waa saddex weeye riboorada dibadda ee ahdaafta riboorada dibadda ee maaliyadeed waa saddex saad arkaysaan waxaa inoogu horeeya balance sheetka waxaa noogu xiga income statement waxaa noogu xiga statement of cash flows haddaba the primary financial statementska ama statementyada ugu horeeya ee muxuu ahaa aanu haysano oo aanu ku baranayno barnaamijkeena isbar financial accounting waxa weeye waa saddexdaasi balance sheet income statement iyo statement of cash flows waxaana la yiraahdaa external financial report ama financial reporting marka ahdaafta external financial reportingka waanu arki doonaa midna waa balance sheetka midna waa income statementiga midna waa statement of cash flows haddaba waxaana la yiraahdaa waa kuwa ugu horeeya statementyada ama liisaska maaliyadeed the primary financial statements waa statementyada ama liisaska maaliyadeed ee ugu horeeya financial statements waa maxay marka financial statementska waxa weeye a lens financial statementska marka maxay ina siinayaan halkan wuxuu ku tusayaa financial statementska qiimaha ay ku fadhiyaan ama liisaska maaliyadeed qiimaha ay ku fadhiyaan a lens waa bikaaci to view ku tusayay businesska waa bikaaci ku tusayay businesska waa businesska companyga way waayo businesska companyga si aad u aragto waxaad soo qaadanaysaa muraayada aad ku eegaysaa marka wuxuu ku tusayaa xaalka shirkadda ee maaliyadeed ee financial position of the company xaalka maaliyadda ee shirkadda ama businesskaasi waxa hanti uu leeyahay ha noqdo resourcekii ama assetskii waxa obligations ah oo liabilities ah lagu leeyahay iyo muxuu ahaa business activitieskii haddii uu yahay profit iyo haddii kale intaba marka financial reporting ayaa intaba dhinacyadaba ka haya si marka ay financial statementskii saddexda ahaa ay kuu tusaan xaalka shirkadda haddaba bikaaca ayuu la macno yahay oo kuu weyneynaya oo aad ku arkayso muxuu ahaa businesskii oo idil internal useries of accounting information haddaba internal userska of accounting informationka waayo waxa weeye waa managementiga companyga waa internally waa gudaha isticmaalayaasha gudaha financial muxuu ahaa accounting informationka waayo accounting ama macluumaadka xisaabaadka waxaa kaloo sidaas oo kale isticmaala internal userska isticmaalayaasha gudaha marka waxaa ka mid ah board of directorska waa nimanka shirkadda maamula ee madaxda u ah waa lajnat alculya waa boardka weeye ama muxuu ahaa guddiga sare ee shirkadda maamula odayaasha shirkadda ayaa halkaa ku wada jira sidoo kale waxaa ku xiga chief executive officer waa ninka kale ee ugu horeeya ee managerka ee nimanka boardka ay soo magacaabeen waxaa kaloo ku jira chief financial officerska waa ninka accountantiga ah ee isagana chiefka ah ee ugu sareeya marka waxaa kaloo kusii xiga vice presidents oo ah yacni nimanka ku-xigayaasha ah sidoo kale waxaa halkaa inoo soo baxaya oo noogu sii xiga business unit managerska nimanka qeybaha kale ee businesska madaxda ka ah
sidoo kale waxaa jira plant managers oo ah nimanka kale managerada kale ee warshadaha iyagana madaxda ka ah hadba qaybaha ama productionka madaxda ka ah oo kale sidaas oo kale store managerska nimanka storada muxuu ahaa madaxda ka ah oo iyagana sidaas oo kale waxay u baahan yihiin internal information inay helaan ama macluumaad daakhiliya inay helaan macluumaad gude inay helaan weeyaan iyo line supervisorska iyo nimanka shaqooyinka muxuu ahaa ka dhacayo placeska kale kala duwan ee shirkadda ay ku leedahay laamaheeda kale supervisorska ka ah ee haya ee maamulaya marka intaba waxay u baahan yihiin in ay helaan accounting information sida ay ragga external userska ay ugu baahan yihiin inay helaan accounting information ayaa sidoo kale iyagana nimankan internal userska ama isticmaalayaasha gudaha iyagana ay u baahan yihiin inay helaan accounting information haddaba typical simple organization chart khariidad yaroo sahal ah tusaale ahaan oo organizationka tusaysa ayaan halkaa ku arkaynaa markii aanu soo qaadnay muxuu ahaa internal userska dadka ay yihiin ayaa khariidad ahaan halkan mas-uuliyaadkoodii uu inagu tusayaa marka inta badan markii accounting systemka shirkadda la dhisayo waxaa ka qayb qaataa accountantiga dadka ah sidoo kale waxaa ka qayb qaata managementiga maamulka shirkadda sidaasoo kale waxaa ka qayb qaadanaya computer programmerka iyo muxuu ahaa marketing managerska intaba marka manageradaas oo idil ayaa loo yeerayaa si ay u dhisaan organization chartigii marka organization chartiga waa in la dhisaa oo la qaybiyaa marka board of directorska waa halkaa waxaa ku jira waa guddigii shirkadda ee maamulayay guddiga shirkadda maamulay waa odayaasha shirkadda ayaa halkaa iskugu yimid iyaga markaa waa madax bay u yihiin waa madaxda sare waa guddiga korowey guddigaasi marka waxay doortaan chief executive officer ninkaa ayay doortaan oo CEO la yiraahdo loo soo gaabiyo chief executive officerka kaa ayaa markaa mahaamtii ama mas-uuliyaddii oo idil la wareegaya markaa wuxuu magacaabayaa isagana business unit manager vice president human resourceki waa kan shaqaalaha u qaabilsan vice muxuu ahaa presidentigii oo information servicekii iyo chief financial officerkii iyo ninkii accountantiga ahaa ee chiefka ahaa ee iyadana maamulayay marka ninkaasi baan ka wadnaa inaga xaalkanagii waxa uu marka toos uu ula xiriirayaa uu xiriir ula leeyahay plant accountantiga iyo plant accountantiga nimanka warshadaha ama qaybaha productionka xisaabaadkeeda haya ee accountiyada hoos yimaada marka ninka chiefka ah kuwa ayuu toos ula leeyahay marka ayuu la shaqaynayaa weeyaan macnaheeda marka haddaba qaabkan simbalka ah ayuu noqon karayaa marka organizationka ee chartigiisa tusaale ahaan haddaba board of directors waxay nagu sii xigay chief of executive officer kadibna qaybaha kale ayaad usii kala qaadaysaa oo qariidatan ayaad samaysanaysaa intaad soo qaadato muxuu ahaa warqad iyo qalin oo aad xariiqaysaa oad u samaynaysaa qaanooyinkaasi si maamulkii aad u hesho warqad ahaan qoraal ahaan aad u hesho ama powerpoint aad ku design garanaysaa haddaba business unit managerka waa qaybta ninkan ayaa madax u ah qaybtan businesska sidoo kale ninkan wuxuu madax u yahay human resourcekii waa shaqaalihii ninkan informationkii ayuu xiriir la leeyahay ninkanna wuxuu madax u yahay ama officer u yahay financial kii kambaniga oo idil marka ninkan waxaa hoos imanaya labadaasi muxuu ahaa labada qaybood ee warshadda ama operationka plantiga qaybaha warshadda ee ka dhacayo xisaabaadka iyadana marka qariidada oo tusaale ahaan aan usoo qaadanay oo kale ayaad u samaynaysaa oo markaa ay u samaynayaan haddii kale ragga loo xilsaara in ay dhisaan kambaniga systemkii uu ku shaqayn lahaa halkaasi waxaa inooga dhammaaday qaybtii koowaad